kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan qodobada wararka kuwa ugu doorka roonna waxaa qayb ka noqonaya madaxweynaha maamulkaasi Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo safar qarsoodi ah ku jooga Imaaraadka Carabta. Haddaba Imaaraadka iyo Puntland maxay ka wada hadli doonaan ayaan kula wadaagi doonaa saaxiibayaal. Qodobada kalena waxaa qayb ka noqonaya maamulka Jubbaland oo ciidamadii ugu badnaa markaasi geysay deegaanka Ras Gamboni ayaan kula wadaagi doonaa saaxiibayaal. dhinaca kalena agaasimihii hore ee nabad sugidda Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo weerar afka ku qaaday madaxweynaha maamulka Somaliland Cabdiraxmaan Ciro. qodobada kalena waxaa qayb ka noqonaya xogta dagaal ka dhacay Jabad Godana iyo sidoo kale Al-Shabaab oo haatan ku sugan deegaanka Warshiiq ee gobolka Shabeellada Dhexe. qodobadaas iyo sidoo kale qodobadii nagu soo kordho ayaan kula wadaagi doonaa daawadayaal. balse intaan kula wadaagna haddii ay tahay markuu gurisan soo boqoto fadlan muuqaalka like saar, share gareey, subscribe saar YouTube-keena ku soo bir saaxiibada ku xiran oo halka markasta ugu baahno xogihii ugu dambeeyay arrimaha Soomaalida iyo caalamka. waa hagaag daawadayaal aynu gudu galno. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa safar qarsoodi ah ku jooga Imaaraadka Carabta. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa wada hadallo xasaasi ah u jooga magaalada Abu Dhabi ee dalka Imaaraadka Carabta xilli uu cirkus ku sii shareeray khilaafka diblomaasiyadeed iyo midka amniga u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta. madaxweynaha Dani ayaa magaalada Abu Dhabi gaaray 2 maalin ka hor kadib safar 3 maalmood qaatay oo ku maray magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. safarka madaxweynaha Puntland ayaa ku soo beegmaya xilli uu xumaaday xiriirka u dhexeeya Muqdisho iyo sidoo kale Abu Dhabi kadib markii dowladda federaalka ay shaacisay inay laashay heshiiskii iskaashiga militari ay la lahayd Imaaraadka Carabta. maamulka Puntland ayaa isniintii si adag ganafka ugu dhuftay go'aanka dowladda federaalka Soomaaliya iyagoo tilmaamay mid balaarsan dastuurka. war-saxaafadeed ka soo baxay Puntland ayaa lagu sheegay in golaha wasiirada dowladda federaalka Soomaaliya aysan awood u lahayn in ay si kaliya u baabiyaan heshiisyo ka howlgala gudaha dowlad goboleedyada iyo wax aan wadatashi laga sameynin sida uu qabo nidaamka federaalka ee Soomaaliya. go'aanka ay shaacisay dowladda federaalka Soomaaliya ee lagu laalayo heshiiska horumarineed ee dekedda Boosaaso iyo iskaashiga amniga ee u dhexeeya Puntland iyo sidoo kale Imaaraadka Carabta waa mid waxba kama jiraan ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay Puntland. waxayna intaasi ku sii dareen in dowlad goboleedyadu ay haystaan awoodahooda dastuuriga inta laga dhameystirayo nidaamka federaalka ee Soomaaliya. xiisadan ayaa saameyn toos ah ku yeelatay xaaladda amni ee gobolka. ilwareedyo ayaa sheegaya in dowladda Imaaraadka Carabta ay dhinacyo saddexaad u gudbisay in ay qorsheynayso inay faaruujiso saldhigyada magaalada Boosaaso balse ay walaaca ka qabto cidda buuxin doonta booskaasi iyo sidoo kale saameynta ay ku yeelan karto howlgalka lagula dagaalamayo kooxda Daacish ee ku sugan buraha bari ee gobolkaasi. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhankeeda shuruud adag ugu dhigtay Imaaraadka inuu ka baxo Boosaaso si uu u qaato qalabka military oo ay ku jiraan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska kuwaasi oo ku xayiran garoonka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. tan iyo markii shuruudahaasi lagu soo rogay waxaa garoonka Boosaaso ka degay diyaaradihii ciidanka Imaaraadka Carabta 3 maalin ee la soo dhaafay. dhinaca kalena khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo Puntland ayaa dhaliyay dhaqdhaqaaqyo ciidan oo cusub. wararka ka imaanaya Garowe ayaa sheegaya in ciidamo dheeraad ah la geenayo caasimadda Puntland ee Garowe kadib markii dowladda federaalka Soomaaliya ay diiwaan gelisay qaar ka mid ah ciidamada Puntland. madaxweynaha maamulkaasi Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa la xaqiijiyay inuu soo saaray amaro culus oo lagu mamnuucayo in ciidamada Puntland ee iska diiwaan geliyay dowladda dhexe gaar ahaan kuwii tagay magaalada Laascaanood ay dib ugu soo laaban doonaan deegaanada Puntland. sidoo kalena maamulka ayaa bilaabay inuu waaran maxkamadeed u jiro saraakiishii fulisay amarada ka soo baxay Muqdisho taasi oo sii kordhisay xasarada siyaasadeed ee dalka. qodobada kalena waxaa qayb ka noqonaya Jubbaland oo markaani ciidamadii ugu badnaa geysay deegaanka Ras Gamboni ee gobolka Jubbada Dhexe. dowlad goboleedka Jubbaland ayaa haatan ciidamo cusub oo dheeraad ah u diyaarisay gudaha deegaanka Ras Gamboni ee gobolka Jubbada Hoose halkaasi oo markaasi ciidamadani tababarka loogu soo xiray. ciidamadani oo qaatay tababar heer sare ah ayaa ka mid noqonaya kuwa nabad sugidda ee Jubbaland waxayna ka howlgali doonaan aaga deegaanka Badhaadhe. agaasimaha guud ee hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda Jubbaland Maxamed Axmed Sabriye ayaa soo xiray tababarkani waxa uuna kula dardaarmay ciidamadani cusub inay gutaan waajibaadka ka saaran amniga. waxaa kaloo intaasi ku sii daray in tababarkani diiradda lagu saaray
kor u qaadista tayada, xirfadaha iyo awoodda howlgalka ciidamada Jubbaland. Waxa uu kaloo sheegay in askartani ay qayb ka yihiin guutada hanqad ee nabad sugidda Jubbaland, isagoo xusay in ay wax badan kusoo kordhin doonaan taliska nabad sugidda. Cutubyadani tababarkii qaatay waxaa si gaar ah loogu carbiyey la dagaalanka kooxda Al-Shabaab, iyagoo markaasi lagu tababaray farsamooyin casri ah oo lagu xaqiijinayo amniga, laguna xoojinayo awoodda dib u soo celinta deegaanka Badhaadhe iyo sidoo kale sugidda amniga deegaanada hoos yimaada, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay hay'adda sirdoonka nabad sugidda Jubbaland. Ujeedada tababarkani ayaa sidoo kale lagu sheegay in lagu xoojinayo ciidanka amniga ee dagaalka kula jira kooxdaasi Al-Shabaab. waxaa kaloo markaasi saldhig u noqon doona ayaa la leeyahay horumarka dowladnimada iyo xasiloonida waarta iyo sidoo kale mustaqbal ammaan leh oo ay helaan shacabka reer Jubbaland ayaa markaasi la sii raaciyay bayaanka ka soo baxay markaasi taliska nabad sugidda ee markaasi Jubbaland. deegaanka Ras Kamboni oo haatan ay joogaan ciidan cusub oo tababar dhameystay ayaa lagu xasuustaa dagaal cusla oo markaasi halkaasi ku dhaxmaray ciidanka dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland, waxaana haatan tan iyo markaasi uu saldhig u ahaa daraawiishta Jubbaland, waxaana haatan ku biiraya ciidamada nabad sugidda oo markaasi loo soo tababaray in ay markaasi ka howlgalaan deegaanka markaasi Ras Kamboni ee gobolka Jubbada Hoose. qodobada kalena waxaa qayb ka noqonaya agaasimihii hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo markaani weerar afka ku qaaday madaxweynaha maamulkaasi Somaliland Cabdiraxmaan Ciro. agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa ka qayb galay barnaamij dood ah oo lagu qabtay magaalada caasimadda ee Muqdisho, ayaa weerar culus oo dhanka afka ku qaaday madaxweynaha maamulka Somaliland Cabdiraxmaan Ciro. Fahad Yaasiin oo si adag markaasi ugu hor yimid aqoonsigii Somaliland ee Israa'iil ayaa tilmaamay in Ciro ictiraafkii ka galay meel xun, isla markaana uu xiriir la sameeyay Yuhuudda oo aan la filaynin in cilaaqaad ay la yeeshaan dad Soomaaliyeed. 35 sano ayay Somaliland taleefan garaacisay, ugu dambeyn sheedaan ayaa ka qabtay iyaga in laga qabto ayaa u muhiimsanaa, waxa ka qabtayna waxba kama gelin, ayuu yiri agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. sidoo kalena waxa uu intaasi ku sii daray in madaxweynaha Somaliland uu markaasi warqad isku mid ah u diray madaxda dalalka Islaamka iyo ra'iisul wasaaraha Netanyahu, taasi oo muujinaysa caqiido xun markaasi sida uu hadalka u dhigay. waxaa kaloo uu carabka ku dhuftay in kaliya uu rabay jawaabta uuna ka helay Israa'iil oo dhowaan ku dhawaaqday in dal ka madax bannaan Somaliland ay tahay Soomaaliya. imtixaanka qofka ugu horeeyay ku dhacay waxa uu noqonayaa ayuu leeyahay madaxweynaha maamulka Somaliland Cabdiraxmaan Ciro oo maalin dhaweed uu yiri waxaan la hadlay Boqor Salmaan, madaxweynaha Turkiga, madaxweynaha Masar iyo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Israa'iil Benjamin Netanyahu. waxa uu yiri Netanyahu ayaa ii soo jawaabay hadalkaasi micnihiisu ma taqaanaa waxa uu rumaysan yahay ma jiraan, waxa uuna carqalad markaasi ku noqonaya bin Salmaan iyo sidoo kale Netanyahu kii ugu jawaabana waxa uu qaadanaya ayuu yiri markaasi Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. waxa uu sidoo kale intaasi ku sii daray waxa uu ilaalinayo ma lahan qiyam, ma lahan caqiido, ma lahan warqadahana waa uu iska dirayaa meeshii ay doontaba isaga dhacdee. hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo Somaliland ay dhaliil xoogan kala kulantay xiriirka markaasi ay la leedahay Israa'iil, waxaana inta badan ka hor yimid ururada caalamka iyo sidoo kale dalalka saaxiibada la ah Soomaaliya. si uu aragtaa in weerar afka uu markaani agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ugu qaado madaxweynaha maamulkaasi Somaliland Cabdiraxmaan Ciro.